kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal waa maalimnimo axada taariikhduna ay ku beegantahay 9 bisha May sanadka 2021 barnaamijkeena dhacdooyinka adduunka maanta waxaynu ku eegi doonaa haweeney Afrikaan oo muslimad ah oo dhashay 9 ciyaal ah. arrin la yaab leh ayaa waxa ay ka dhacday dalka Morocco laakiin arrintan waxay ka soo bilaawtay dalka Mali waxayna ahayd kadib markii hooyo 25 jir ah hal mar u mushay 9 caruur ah oo mataana ah. qisada haweeneydii muslimadda ahayd Xaliima Ciise oo ah hooyada dhashay 9 ciyaalka oo mataana ah ayaa waxa ay bilowday kadib markii goor sii horeysay uurkeeda la ogaaday inay dhaqaatiirta dhinaca la tacaalista dhallaanka iyo hooyada ay sheegeen inay 7 ilmo ah ay uurka ku sido balse markii dambe waxaa la ogaaday inay 7 aysan ahayn oo ay yihiin 9 ciyaal ah. dowladda dalka Mali ayaa arrintan soo faragelisay kadib markii ay maqashay qadiyada oo dhaqaatiirta qaarkood ay sheegayaan in Xaliima oo dalka Mali u dhalatay marka ay joogtay dalkeeda Mali loo maleynayay inay 7 caruur ah uurka ku sido oo aysan ku dhali karin gudaha dalka Mali marka loo eego isbitaalada iyo waliba sidoo kale khibradda dhaqaatiirta dalkaasi Mali. dowladda dalkaasi Mali ayaa waxa ay sidoo kale u qaban qaabisay diyaarad gaar ah isla markaana ku dartay koox dhaqaatiir ah waxaana loo asteeyay inay ku soo umusho dalka Morocco balse marka ay dalka Morocco ay gaadhay ujeedkeedu ahaa inay 7 ilmo ah looga dhaliyo qalitaan halkaasi ay ku gashay ayaa waxaa looga dhaliyay 9 caruur ah oo ay kala yihiin 5 gabdhood iyo 4 wiil. afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka dalka Morocco ayaa waxa uu ka dhawaajiyay in waxa uu arkay ay tahay qiso weligiis ku cusub taariikhda dalkiisa waana abid markii ugu horeysay gudaha dalka Morocco ay ku dhashaan waa dhacdo nagu cusub ayuu yiri afhayeen dalkaasi u hadlay Rashid Kodari in haweeney ay ku dhasho isbitaalada dalka Morocco 9 caruur ah ayuu yiri. waxa uu intaasi ku daray marka laga hadlayo xaaladda hooyada iyo ilmaha ay dhashay loo fiiriyo ay dhammaantood bad qabaan isla markaasna ay fiican yihiin. wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalka Mali Fanta Sibi ayaa waxa ay goor sii horeysay waxa ay soo saartay warqad qoraal ah oo ay hambalyo ugu diraysa dhammaan dadkii ka qayb qaatay ee dadaalka oo ay ku jiraan kooxdii dhaqaatiirta labada dal u dhashay iyo isbitaalkii dhaliyay iyo sidoo kale hooyada sida nabadda ah ku dhashay 9 caruurta ah. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxa ay sheegtay oo ayadana arrintan ka warantay in ay tahay mid daf naadir ah in haweeney 9 caruur ah ay dhasho. weli wax tafaasiil dheeraad ah lagama bixinin miisaanka caruurta balse waxaa la sheegay neefsashadooda caruurta inay fiican tahay waxaana leenahay Allah u xifdiyo caruurtaasi gabadhaasi muslimadda ah. daawadayaal intaas ayuu barnaamijkeena ku egyahay waxa barnaamijkeeda la socodsiinaya anigoo ah Najiib Akhyaar. intaan barnaamijka mid la mid ah aynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo fi amaanillah.